su'aalihii ayaynu ku guda jirnaa su'aasha xiga ee nala soo weydiiyay waxa ay tahay timaha ma la marin karaa madoobayso amaba cilaan madow sida waayahanba soo badatay alxamdulilah masalada timaha in la madoobayn karo iyo in kale waa masalo culimmadu taliya waqti aada u horeeyey ee aada isugu qabqabteen wey khilaafkeedana tani cahdigii saxaabada uu soo socday ridwaanullaahi calayhim jamiican wuxuuna ku salaysan yahay axaadiis waxaa jirta mamnuucaysa oo diidaysa ama xaaraantinimaynaysa in la madoobeeyo axaadiistaasi ma sugan tahay mise ma sugno hadday sugan tahay macnaha looga jeeda muxuu yahay culimmadu inay karaaha tahay bay u badan yihiin laba xaaladood horta iyaga intaan ogahay muran badan kama taagna hadday tahay qofku wuxuu u marsanayo inuu dad khiyaamayo dee isagoo duqoobay u dhallinyara isaga dhigayo guur iyo dana kale uu leeyahay wax khiyaamaya hadday tahay ujeeddadu dee waa wax wasiilaa ama loo adeegsanayo xuma iyo dembi in la sameeyo mid labaadna intaan garanayo ama naqliyay khilaaf kama taagna haddii qofka muslimkii gaal ugu jima tuuranayo oo jihaad iyo dagaal lagu jiro duqan waayeelkii ciroobay ee dhacay intii la dhihi lahaa lagu dhiiran lahaa timaha u madoobaystana sida xaafid ibnu xajar culimo kale ay sanfilayeen ay soo guuriyeen ittifaaqan labadaas tanna waa xaaraan tanna waa bannaan tahay qaar culimmadaaba sunnanimo gaarsiiyeyba inta ka soo hartay aan labadaa midna ahayn inuu qofku isku qurxiyo timaha iyo garhka iyo shaarubada iyo madoobaysto halka way halka khilaafku ka jiro labada xadiid ee ugu muhiimsan xadiidna waa xadiidka imaam muslim iyo keyrkiiba warinayaan nabiga abubakar aabihii markii isagoo madacad loo keenay inuu yagayiruu canii hada shayba ciradan iga bedela wajanibuhu sawaada madowna ka ilaaliya jumlada wajanibuhu sawaada man nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam mise nabiga hadalkiisii ma ah waa min xadiidi jaabir abu zubayr can jaabir bay ruwaaddii isku khilaafeen culimmadu qaarka banaynaya waxay leeyihiin xadiidkaasi ma asixina wajanibuhu sawaada nabigu ma dhihin ruwaadda qaarkood baa yidhi oo abu zubayr ka wariyaa la weydiiyey xadiidka ku wareegayo wuxuu yidhi ma saasuu nabigu intii la yidhi ma garanayo yidhi riwaaya abu khaythama zuhayr ibni mucaawiya kuwa lamidka halkaasay la mareen xadiid kale waa xadiid abu daawud iyo keyrka ibni cabaas ka wariyeeno uu leeyahay aakhiru zamanka waxaa iman doona qowmun yakhdamuuna bisawaadi timaha madoobaysan doona dadkaasi jannada carafteeda ma carfinayaan jannada oo ma urinayaan xadiidkaas sixadiisana waa la isku qabsaday oo culimmada qaar baa yidhi xadiidkani ma asixin macnihiisana waa la isku qabsaday waana ta ugu muhiimsan xadiidkani culimo badan baa waxay leeyihin ibn abi caasim kitaabu ka qoray alkhidaab bisawaad madow in la marsan karo ibn abi caasim kitaabu sunna iyo axad walmathani iyo kitaabu ljihaad ninka iskale aimadii hore abu caasim nabil wiilkiisii waay ibnuljawzi kitaabu alkhidaab bisawaad isagana ka qoray xadiidkan isaga mawduucaadkuba ku daraya wuuna ku qaldamay marka iyagu waxay leeyihiin dad tilmaantoodu saa tahaa laga sheekaynayaaye tilmaantan in la mamnuucaya maaha tilmaantan in la mamnuucaya maaha waxay la mid tahay dhan xadiidkii khawaarijta tilmaamayey ee siimaahum taxliiqu calaamadoodu madaxay xiranayaan iyagaa laga hadlayay calaamadtooda sheegay timay xiran lakin timi xirashadu xaaraan maaha yakhdabuuna bisawaadi saas oo kaleeta way inay yidhaahdaan ayay mareen waxay arrinta labaad ee tusaysaa nabigu fi aakhiri zamaani buu xadiidkan ku yidhi zamanka aakhirkiisa saxaabada madow marsata yidhahdeen walidaalika ibn abi caasim iyo waxay soo guurinayaan musanafaadka ibn abi shaybi iyo waxay ka soo guurinayaan waxa saxaya waxaana saxina way isugu jirtaa cumar iyo cali iyo cuthmaan iyo saxaabo fara badan iyo ayma taabiciin iyo inay wada marsan jireen ibn qayyimna fi zaad al-macaad wuxuu ku tilmaamayaa in masaladu haddaynan khiyaano ku jirin aynan sii weyneyn calaa kulli xaal axaadiida way asaxday culimmada tiri sidaana ka fahmay baa taxriimisay jamhuurtu waxay u badan yihiin xaaraan ma aha laakiin waa karaaha laga fiican yahay billahi tawfiiq